السلام عليكم أصحابي وإذن وذا السلام يسيدا أودن تهيمبا marka waxaan ka hadlaynaa qaybtii labaad ee pipka marka qaybtii labaad intaadan fiirsanin waa inaad fiirsato videoga ka horeeyay kanayto inaad fiirsato waaye marka qaybtii labaad waa hadda waxaan sameynayna ku soo dhawaada marka meesha hadda aan marayno waxa waaye getting dressed sida dharka aad u gashanaysid oo kale marka dhar gashashada waxa laga hadlayaa qofka dharka markuu gashanayo ma wuxuu u baahan yahay in loo sheego oo dhaho waxaan inta wasaq waaye iska siib in la dhaho muxuu ahay ma wuxuu u baahan yahay dhar oo wuxuu u baahan dhar galuusi aan lahayn ma u baahan yahay mise dhar oo muxuu ah qafiif oo la soo jiidi karo fanaanad dhar kala jiid maayo oo u baahan yahay waxyaabahaas laga hadlayo haye teeda kale gacmaha kor ma u qaadi kartaa kaliya ma gashan kartaa shinyeer ma xiri kartaa waxyaabahaas lagu weydiinaa halkan ugu muhiimsan waxa waaye weekii meeqa jeer dharka iska bedeshaa marka waa inaad number siisid ay hadii aadan gashan karin sababta u gashan karin maxay tahay lagu leeyahay gacnaha arthritis ma gacnaha ku kagsan gacnaha ma ku xanuunay fadhi gacanta ma aadan kor u qaadi karin sababta u gashan karin maxay tahay dharka waa ka soo hadalnay surwaal ma gashan kartaa iyo waxyaabaha surwaalka kor ma soo qaadi kartaa lugahaaga surwaalka markaa gashanaysid saas lagu leeyahay ma rogman kartaa ay dharka markaa gashanaysid ma fariisataa sariir ma ku fadhidaa mise adoo taagana gashan kartaa oo qof oo balancegeeda fiican yahay tahay marka sida dharka lagu weydiinayo waxyaabahaas waay marka dharka aad weydiinaysid dharka aad gashanaysid waxa waaye sababta lagu weydiinayo siyaabaha aad gashan kartid dhar balaf ma gashataa mise dhar oo kala jiid maayo oo fudfudud oo gacanta kor marka u jiidaba jiid maayo kale oo kaygan oo kale saas u jiid maayo kale miya mise dharka aan jiidmaynin oo cottonka ah waaye marka dharka gashashadiisa saas marka naga baxno waa muxuu pointiyaal waxay ku xiran yihiin aniga mar walba waxaan u baahanahay in la caawiyo waa laba pointi muxuu ahaay ma gashan karaba maba gashan karo axyar mar walba waxaan u baahanahay in la caawiyo ayaan u baahanahay 8 pointi waaye marka waa muxuu ahaay waxyaabahaas oo dhan inaad ka fikirtid waa dharka gashashadiisa tan kale hadda aan gudbi doono waxa waaye muxuu ahaay communication hadalka waxaa laga wadaa adiga kaliya ma hadli kartaa waxaa laga wadaa qof oo hadalka dadka oo dhibaayaba maata oo hadalkaba dhibsanayo kale taas maxaa laga wadaa mataqaanaa qofkanayto oo nervous markuu yahay iska cabsanayo isaga dadka dhan shaki ku oo ka qabo taasoo kale ma tahay ay qof codka dhibaaya ma tahay dhuunta xanuunaysa ma tahay waxyaabahaas laga hadlayo hadalka ku dhibaaya marka lagu leeyahay ay teeda kale hadalka communication-ku uu badan yahay marka waxaa kaloo laga hadlayaa oo kale muxuu ahay marka hadlaysid adiga waxa u baahan tahay turjubaan ma u baahan tahay mise muxuu kaliya waa turjuban kartaa turjubaan ma u baahan tahay ay teeda kale dhakhtarkaaga marka u tagtid oo kale kaliya ma hadli kartaa mise waa cabsanay mise waxa dhakhtarka u sheegi laheedaa hilmaamaysaa oo kala hilmaamaysaa hilmaamkaaga badan marka taa cala adligeed qof inay ku raacdo oo qof ku hadasho miyaaba markasto ay waxaa kaloo lagu leeyahay dad strange dad aadan aqooni jirin haddaad la kulanto ma la sheekaysan kartaa lagu leeyahay sheekada ka waran qof aadan aqooni jirin oo kale ma la sheekaysan kartaa marka sababta lagu weydiinayo waxaa qof aadan aqooni jirin haddaad dadka aadan la sheekaysan karin oo kale hay-dad waxaa jiro oo muxuu ahay hadalka oo dheer oo grammaticalka dhib oo ku yahayba marka hadalka in loo fududeeyo loo jilciyo u baahan mar walba baan waxaan u baahanahay in la ii jilciyo hadalkaanayto oo adaga oo grammatic ma aad uma aqaano waxaan u baahanahay hadallo simple sentence waxyaabo fudfudud ayaan u baahanahay hadalka in la ii fududeeyo la ii jilciyaan u baahanahay aad uma fahmaayay marka taa darteed mar walba qof inay raacdo ayaan rabaa oo hadallada ay ii jilciso si gooni ay iigu sheegto siyaabaha kale ma fahmaayay dadka markay saas ay iila hadlaayaan marka hadallada taasoo kale marka example muxuu ahay misunderstanding waxyaabo badan oo mar walba qof u baahan tahay in qof kale siyaabo ay kugu sheego ayaa hadalkaas markaan ka gudubno waxaan u gudbaynaa hadeertanitod waxaa waaye akhriska iyo muxuu ahay inaad akhriska wax akhrin karto oo luqadaada akhrin karto ama luqadahan aad akhrin karto kale ingiriiska lagu weydiinaya marka hadii luqadaada akhrin karto ma waa kaas hadaadan aqoonin maba akhrin aqaano ama waan akhrin jiro hadda ma akhrin aqaano wixii dhan waan indhaha xanuunayo ama maba si fiican uma fahmaay marka su'aalaha lagu weydiinaa xagga akhriska oo kale waxa waaye
mar walbaba waxaan u baahanahay in oo la idhaho waxaanay tudkaan fiiri kan aqri ay qoraal ma qori kartaa ayaa lagu leeyahay waan aqrin karaa xoogo haddaa dhexdidoo kale waxaa waaye 2 pointi waaye ma aqrin kariyo mar walbaba waxaan u baahanahay in wax walba la ii sheego waxa waaye basic waxyaabaha fudfudud hataa muxuu ahay informationka hataa fudud saas uma fahmaayo waa 4 pointi uma fahmaayo wax yar aa laga wadaa maba fahmaayo aqris iyo waxyaabahaas oo dhanba ma fahmaayo mana aqrin karo mana qori karo haddaa dhahdid waa 8 pointi waaye waxaa waaye fahamkiyaaba igu yar aa dhahdid waa 8 pointi waaye kaasitood marka muhiim in aad muxuu ahay complex waxaa laga wadaa waxyaabaha oo aad isugu dhex qasqasan oo aan la fahmi karin oo kale marka taasaytoodna inaad ka fikirtid waa qoraalka iyo marka lagu weydiinayo communicationka taasaa laga hadlaya akhriska qoraalka iyo akhriska iyo fahamka oo muxuu ahay waxyaabo calaamooyin ah hataa ma fahmi kartaa wax calaamooyin jidadka haddaa tagtid ma aqrin kartaa jidka aa usii socotay iyo address iyo waxaas ma aqrin kartaa aa lagu leeyahay marka haddii oo muxuu ahay mar walba waxaa u baahan tahay in lagu aqriyaa u baahan tahay marka tan oo kale waa muhiim in aad aad aga fikirto tan kale ayadana waxaa waaye fahamka kaliya waaye qof haddii muxuu ahaye dadka kale ma la sheekaysan kartaa dadka kale ma la sheekaysan kartaa taasi waxay ka mid tahay haddii qof aadan aqooni jirin oo hadda aad aragtay dadka caadi ma ula sheekaysan kartaa oo kale ay muxuu ahaye dadka weji ka weji ma ula hadli kartaa haddii haye aad dhahdo ha waa ula hadli karaa taasi waxaa laga wadaa tan ugu horeysa waxaa dadka ha waa la sheekaysan karaa waxyar laakiin waxaan u baahanahay qof kale inay mar walbaba i ag taagantaho ee caawiso ayaan u baahanahay waa 2 pointi waaye ay tan ku xigtana haddii muxuu ahaay mar walbaba ani waxaan u baahanahay qof inay ag taagnaato garab isiiso arrimahaasaytood garab ugu siiso waxaa waaye 4 pointi waaye garab dheeraad haddaa u baahantahay maba hadli karo dadka kale waaban ka cabsadaa oo sababtoo ah sababta inaad ka faa'iiday oo muxuu si faalo dheeraada aga bixisid waaye sababtaada dadku ula hadli karin inaad dadka ka cabsanaysid in oo muxuu ahay shaki waxyaabahaas kaaga jiro marka waxaad dareemaysa su-aalahan isla su-aashile in lagugu soo celcelinayo laakiin ma ahan su-aashile laguguma soo celcelinayo su-aalaha xoogoo way kala duwan yihiin marka aada u dhageysatid laguguma soo celcelinayo marka midba midda kale sida ay u daba socoto ay isugu egyihiin laakiin waa isku wada egyihiin marka sida aad u tilmaamaysid oo mar walbaba aa aga hadlaysid marka muhiim waa inaad saasoo kale aga wada hashahay tu walbaba marka lagu weydiiyo give examples aa lagu leeyahay marka taasitood waa matalan inaad kasii faalayso oo sababta aa u faalayso markii number lagu weydiina wax lagu weydiiyo ilaa meeqoy waxaan ku haayeen lagu dhaho inaad number sheegtid waa xanuunkan ilaa meeqow ku haayeen number inaad sheegtidaa loo baahan yahay ma la rabo waqti dheer inaad dhahdid lama rabo muxuu ahay making budgeting decision waxaa laga wadaa lacagtaada yaa kuu maamulo lacagtaada madaa maamusho aniga waxyar waan maamulan karaa lacagtayda oo go-aan waan gaari karaa waxaa waaye pointi ma lihid markaasaytood go-aan ani keligay ma gaari karin laakiin waxaan u baahanahay caawinaad qofaa igu caawiso lacagta muxuu ahaay maamulkeedoo kale waa la igu caawiyaa taasaytood 2 pointi waa mar walbaba waxaan u baahanahay in qof go-aan ila gaarto oo waxyaabaha biilalka qof ii dhiibto lacagaha ii maamusho taasaytood 4 pointi waaye aniga maba awoodaba waxyaabahaas oo kale waa 8 pointi waaye maba awoodaba waxyaabahaas waa xasuustaa igu yar maba fahmaayo nambaraba ma fahmaayo kale 8 pointi waaye marka waa muhiim in aad si sax ah aga dhaadhiciso oo nambaradan aad ka fikirto lacagaha marka ay muxuu ahay waxay ku xiran tahay siyaabaha adiga aad aga faalayso muxuu ahay biilalka inaad dhiibi kartid oo kale bangigaada aad keligaa keli kartid oo kale muxuu ahay aad ogsoon tahay waqtiyada biilalka la dhiibaayo kale waxaasoo kale ma xasuusan tahay marka lagu dhaho aad aga fikirtaa marka muxuu ahaaye xagga biilalka markaa meesha aga baxno meeshaan waxaa waaye planning and following a journey waxaa laga wadaa planning markaad tabaabushaysanaysid oo kale gurigaada intaa ka baxdid oo kale meel ballan oo kale meesha ballanta lagaaga dhigaayo oo kale aa aadaysid waa safar meel u safraysid oo kale safarkaas aa u tabaabashaysanaysid marka taas ma awoodaa adiga keligaa maa samaysato say ku tahay arrintaasaytood tan waxaa laga wadaa aniga keliga waa samaysan karaa pointi ma lihid markaasaytood
waxaan u baahanahay in la igu caawiyo xagga oo muxuu ahaay markaan meel tagaayo kale waxaan stress aan qaadayaaba waa 4 point stress aan qaadaa markaan meel aadayo waa ku stressaaba maba sameyn karo jidkaas maritaankiisa iyo jidadkii aan kala aqoonin waa 8 point ay muxuu ahaay maba raaci karo ballamo email oo kale jid ma raaci karo ballan dariiq keligay ma mari karo ay haddii tilmaan meesha la iigu tilmaamo ama Google ma fiirsan karo ama address ma aqrin karo 10 point maba sameyn karo waxyaabahaas muxuu iyadana 10 point leeyahay laakiin waxyaabahaas oo dhan ani waxaan sameyn karaa ma ahan mar walba waxaan u baahanahay waa ku wareerayaa markaan banaanka u baxo 12 point markaas laakiin waxaa loo baahan yahay sababaha aadan u sameyn karin marka dambe marka horeba sababta aadan u sameyn karin waa inaad ka faaleyso oo aad dhahdo sababtaas iyo sababtaan u faaleen karin waa ku wareerayaa ama maskaxda ay wareerayso markaan banaanka baxo meelihii waa iga dhudhumayaan waan kala iloobayaa adi waxay sababtaada ay tahay qofka gooni waa qofka kale lama mid ah qof walba qofka kale uu ka duwan yahay marka hadda waxaan ka hadlaynay muxuu ahaa qaybtii ugu dambeyso waaye meeshan inta waxaan ka hadlaynaa waa dhaqdhaqaaqa moving around marka dhaqdhaqaaqa moving around waxaa laga wadaa adi keligaa ma istaagi kartaa oo xanuun adoosan ku haynin ma istaagi kartaa haddaad istaagtid ma socon kartaa muxuu ahaay ilaa iyo 20 mitir ma socon kartaa intaa istaagtid adoon waxba haysanin waaye marka adoon ulma u baahan tahay ulma ku soconaysaa haddii 20 mitir camal aad socotid horeyna waa laga soo hadal waxaan intu marka waxaa u baahan tahay inaad nasato haddaad nasanaysidna ilaa meeqa daqiiqa u baahan tahay inaad nasatid oo kale muxuu taasna inaad ka fikirtid waa meeqa daqiiqo 2 daqiiqo inaan taagnaado waayo markaas kadib aan dhaqaaqo markaad muxuu istaagaysid daal waxaad dareemaysaa neeftuur murqaha maa ku xanuunayo lugaha maa ku xanuunayaba ma gacnihii ayaadan ulaha ku haysan karin ul hadaa wadatay waayo gacnaha maa ku xanuunayo marka inaad ka fikirtid waay taas oo kale marka haddii ul aa wadatay oo aad neefsanaysid oo 20 mitir toos aad u socon karin ulna aad haysato ulo ama frame walking frame kan oo labada gacnood lagu qabsanayo aad ku socoto kaas oo kale waxaa waaye 8 point waaye laakiin haddii ul aad ku socotid oo 20 mitirna aad socon karto ama ka badan waa muxuu ahaa 4 point haddii ul la-aanba aadan socon karin ama geedkan frame walking frame aad ku socon la-aantiisba aadan dhaqaaqi karin 20kaasba dhib ay kugu tahay waa 10 point waaye oo dhaqdhaqaaqa xaggiisa marka waxaa loo baahan yahay inaad aada uga fikirto su-aalahan wax sababta lagu weydiinayo waxaa waaye in oo adig dhaqdhaqaaqaaga halahooyaa la fiirinayaa xanuunka oo kugu qabanayo markaad kursiga ka kacaysid inaad kursiga keligaa kici kartid inaad muxuu ahaa meel inaad qabsato aa u baahan tahay ayay sababtaadan u kici karin maxay tahaa lagu leeyahay marka ma kici kariyo muxuu ahaaye lugihii ay xanuunayo maxoga ay xanuunayo waxay tahay waa inaad ka fikirtid marka sababta lagu weydiiyo marka wax lagu weydiiyo dhaqtar ilaa goorma kuugu sheega la dhaho waqtigaas inaad dhahdid waay goormee dhaqtar kuugu dambeysay dhaqtar ma la socotaa ha lagu leeyahay specialist ayaa laga wadaa yaa kula socdo dhaqtarkaaga keliya maa kula socdo GP-gaaga mise specialist la socotaa specialist la socdaa haddaad dhahda kuwa isbitaalka meeqa jeeraad la kulantay goormee kuugu dambeysay ayaa lagu leeyahay marka ka fikir waxyaabahaas oo dhan ay physiotherapy ma u tagtaa lugaha ku xanuunayo ama maxog ku xanuunayo ama garbaha ku xanuunayo qoorta qofba meelaha xanuunaysa dadka isku mid maahan physiotherapy ma u tagtaa marka waxyaabahan oo dhan inaad ka fikirtiin waa asxaabay fadlan muxuu markaad fiirsatiin gambaleelka yar dhagsi subscribe noo saar sifaadan u gefin ay like-na noo saar comment-na hoos noogu soo qor siyaadan u gefin marka soo dhawaada sidaa u dhantiin assalaamu calaykum